nuxurkii heshiisku sheega ahaa ee golayaasha la keenay 12 February weli anagu xisbi ahaan waxaanu aqoonsanahay inuu ahaa heshiis xaaraana oo Somaliland iyo qaranka iyo jamhuuriyadda midna aanay dani ugu jirin taana waxa iftiiminteeda ummadda Somaliland ay ka aragtaa sida aanay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland aanay u qancin bulshada ee aan u ahayn nuxurkaasi mid furan oo laga qayb galiyay waxgaradka iyo aqoon-yahanka jamhuuriyadda Somaliland runtii waxa weeye nuxurkaasi mid cid gaar ah dani ugu jirto oo ujeedka loo galana ay tahay waxoogaa dilaalida iyo inay cid gaar ay ku qaadato hantida qaranka saxiixa qaranka iyo magaceena heshiisku sheega nuxurka ahina wax dana oo Somaliland ugu jirta oo ilaa hadda la arkay ma jirto hadduu ahaan la wax maangala oo macquulana waxa loo soo bandhigay ummadda jamhuuriyadda Somaliland laakiin taa waxa marageeda fura marar badan oo markii saddexaad marag furay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire golayaasha qaranka wixii la keenayna wuxuu ahaa waxa la keenaa golayaasha heshiis dhammaystiran oo waxa weeyaan golaha wakiiladu ansixiyo oo uu sheegayo qodobka 3 firqadiisa saddexaad oo sheegaysa in golayaasha la keenay heshiis laakiin nuxur aan la keenin shalay oo ugu dambeysay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka marag furay oo ummadda Somaliland oo mar saddexaad u sheegay inaan golaha wakiilada iyo golayaasha qaranka aan la horkeenin heshiis wixii la horkeenay uu ahaa nuxur waxaase laakiin isweydiintu ay tahay oo shacabku isweydiinaya qolooyinka heshiiskan dabada nuxurkan dabada ka wada ee golaha wasiirada iyo xukuumadda leh tuuganimadooda iyo waxa weeye way difaacayaan oo way sheegayaan oo iyagu waxa weeyaan heshiiska waxa nuxurka ku dhageeyeen mar walba inay Somaliland ay ugu jirto laakiin wasiirka arrimaha dibadda wuxuu mar walba ku celcelinayaa in aan la keenin golaha heshiis taasina waxa muujinaysaa dhuumasho dhabar ku muuqdo wasiirka laftigiisa inay faray ku gudantay oo nasiib darro tahay haddii qaranka iyo dalka aanay ugu jirin dan oo uu og yahay siday tahayba weeyaan waxay wasiirku inuu position ka istaago meel cad istaago oo waxa weeye xukuumadda ummadda ku xadaysa qalinka iyo waxa weeye heshiisyada ay la soo gelisay ciidaha la garin aan danta ku jirin waxay wasiirku inuu bayaamiyo oo ummadda jamhuuriyadda Somaliland intuu soo istaago iscasilo oo uu sheego ay sharafto ah laakiin tan waxa muujinaysaa in heshiisyada saxiixiisa ummadda lagu xadayo oo sidii heshiiskii DP World ee aan qaranka dan ugu jirin imika ay soo ifbaxayso ceebihiisii ay ugu horeyso shaqaalaha laga dareeriyay ee dekada iyo agardaamooyinka kale ee jiraba in heshiiskii saasoo kale uu fashilan yahay oo qaranka dan ugu jirin laakiin wasiirka arrimaha dibadda oo media iyo warbaahinta markuu soo istaaga sheegaya inaan heshiiskan dan ugu jirin haddana aan si daah furan oo bareero leh oo cadaana oo lagu qarxsan yahay aan meel u istaagin waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku tahay ay ceeb tahay oo ay ahayd in uu wasiirku iscasilo oo ummadda jamhuuriyadda Somaliland u bayaamiyo oo waxa weeye looga garaabi lahaa inuu nuxurkaas aanay ummadda dan ugu jirin heshiiska ummaddu aqbali mayso qaadan mayso xisbi ahaan anagu waxaanu taaganay go'aankayagii ahaa gudoomiyahayagu waxa weeyaan go'aankayagii ahaa in aan heshiisku sheega dani ugu jirin ummadda jamhuuriyadda Somaliland aqbali mayno meel walooy gaadhaba waanu gaarsiinaynaa hadday qoraal tahay iyo hadday qowl tahay iyo haddii ay tahay mudaharaad iyo haddii ay tahay in ummadda loo soo bandhigo nuxurkaas heshiiska lagu sheegay inaanay inaga dani ugu jirin waxa kale oo sheegaynaa oo runtii ahayd arrin boogaadin mudan mudaharaadkii UK ka dhacay ee dadka xaq u dirirka ay xorriyadda haystaa ay ku soo bandhigeen sidii uga xun yihiin iibka qaranka la iibinayo jamhuuriyadda Somaliland halgankii wixii loo soo galay aynu intaasoo dhan u joognay Somaliland ay ku aasaasaneed waxa weeye in ummaddu ay hesho nolol iyo nabad ka duwan tii afweyne ee laga gelgishay ahayd caburinta iyo xorriyad darrada xukuumaddanina waxay tubteedii haysaa
inay u muuq eeg tahay tii waagaa la riday ee siyaad barre maamulkuna waa waxa weeye waa siiraanyo iyo siyaad barrena wax badan kuma kala duwanaanayaan maadaama qarankii iyo dalkii iyo dadkiiba xukuumaddu gebigeedaba ay afar inayna weydaarsanayaan shilimaad oo waxa weeye iyaga ay ku dhacayso boorsooyinkooda ummadda somalilan waxaanu soo jeedinaynaa sidaa wasiirku uu ku tiraabay ee uu sheegayo ee annagu aanu hore u sheegnay 20 cisho ka hor xisbiga iyagu in aanu jirin wax heshiisa oo daah furan oo qaranku soo galay ee waxani uu yahay nuxuraan macna lahayn oo qaranka iyo ummadana lagu qalan shubataynayo waxaanu soo jeedinaynaa ummaddu meel wala joogto reer Somaliland in aynaan marnaba yeelin oo aynaan marnaba qaadin gunnimada ay tahay in la siisanayo wixii ni gashay aynu soo jeedinaynaa aad iyo aad u mahadsantahay